ويه ان وكسر وين ما قاعد سدان حمزة عبد علي. حمزه سؤال انا كنت ديار متى ها ويه ان نبا waxa ka fakatay wax la jira lo asoo wada maraya ayaa wax ka soo baxay oo raadinaya nin kale ninkii buu wadiyo ku yiri lo ma aragtay ninkii baa wuxuu ku jawaabay waxaan arkay wiiri sac uu sac ka horeeyo sacna uu sac ka dambeeyo laba sac oo sac u dhaxeeyo imsa sac uu ninka sheegay laba sac mu sheegay laba sac mu sheegay ma sheegin isku day ku celi hada ku celiyo waxa la jira waxa oranaysaa waxaan arkay buu yiraahdo sac uu sac ka horeeyo sacna uu sac ka dambeeyo laba sacna uu sac u dhaxeeyo sac buu arkay ninkaas hor hal sac هذا ما صدق ويوم صدقني والله ما قاعد صدقان واحمد ولي عمر احمد سؤالنا كنت ديار موتا واسكو ديليدا وياي ان سؤاشا سيدنا ayuu dhacaysa ninba ay dilay kabacdi aygi dhawaqiisa ayuu nin kale ku soo baxay oo guri kaga soo baxay wuxuu yiri aygan iska daa Cabdullaahi hooyadii baa dhashay maxay ku dhacday sidan aygan iska daa Cabdullaahi hooyadii baa dhashay aygan laftiisa mala ay isku day ninka saas uu yiri wuxuu ka wadaa marka wuxuu ka wadaa hadii ay magaranaysaa qof dhashay way leedahay baa ka dhigan tahay iyada may salaama wali ku soo may si kale uma garanay si kale uma garanay way aad ma soo dhawa kama cilna waqti qaaliga aan siisay way aan oo ku soo dhawayna magaca sadaan maxamed nuur habane magacaygu waa maxamed nuur habane maxamed xulno ku magac dheer way ku soo dhawayna xalxalay inaan ku diyaar ma tahay diyaar baan u ahay runtii kulkan laakiin waan isku dayo su'aalo xalxalay aad igama fadhiye xagga diinta inaad ila xisaan rabay laakiin way labadaba ku diin hadii aad garan weydo dabcan su'aashiina u dhacaysa ninba ay dilay nin kale ayaa dhawaaqay ay ku soo bax wuxuu yiri war ayga iska daa Cabdullaahi hooyadii baa dhashay say ku dhashay su'aashaad kulli haddaan isku dayo kulli waa uun macnaha ma garanayo aniga kulli su'aasha waxaas xalxalaha ku karo ku sheegay mayna fadhiye ku arkay wiilkan maadaama uu doqon yahay oo doqon kan macnaha uu nooy kulli buu ilaa Cabdullaahi ay hooyadii dhashay waa uu nooyahay laakiin taaban iska daa hebel baa walaalkay ma mulay way ma da garanin aad sii wadanaysan wax la jiray waan kugu dari karnaa su'aal kale ma gudin soo gaadina magacaagu sadaan magacaygu sacan waa kulli Cabaash Cabdi aan kulli su'aalina ku diyaar ma tahay aad diyaar baan u ahay way su'aashiina ay u dhacaysaa nin baa loo ka fakatay soo raadinaya ayaa nin kale ka soo baxay nin kale uu weydiiyay wuxuu ku yiri niyow loo ma aragtay ninkii baa wuxuu ku yiri waxaan arkay sac uu sac ka horeeyo sacna uu sac ka dambeeyo laba sac uu sac u dhaxeeyo imsa sac uu sheegay ya sac ka horeeyo wuxuu yiri waxaan arkay yiri sac uu sac ka horeeyo sacna uu sac ka dambeeyo laba sac uu sac u dhaxeeyo imsa sac uu arkay ninka afar sac buu arkay afar sac buu arkay mid horeeya mid dambeeya mid dhaxeeya iyo mid ka balleeya waka ma garanin dan rabiic sheekh cali daahir rabiic su'aalina ku diyaar ma tahay diyaar baan way ninba waxa la jiray ay dilay nin kale ayaa aygi dhawaaqiisa ku soo baxay wuxuu ku yiri war ayga iska daa diline Cabdullaahi hooyadii baa dhashay sabab ku dhashay su'aashaas niyo waxaad noo daayay inuu adagtahay isku day kulli Cabdullaahi hooyadii baa dhashay aygi daabi ma ka wada waxaan u malaynayaa inuu leeyahay ninka dilina iska daa ay su'aasha mugu bedela miisaantaas ku ekaysan ii bedel ma way nin baa lo ka fakatay soo raadinaya nin kale ka soo baxay nin kale uu weydiiyay ku yiri niyo lo ma aragtay nin kale wuxuu yiri waxaan arkay sac oo sac ka horeeyo sacna oo sac ka dambeeyo laba sac oo sac u dhaxeeyo imsa sac buu sheegay ama uu arkay shan way ma garanin aad ma santahay walaal oo soo dhaweynay magaca sadaan Bashiir Maxamed Mursal Bashiir su'aalina ku diyaar xalxalaha diyaar ma tahay way su'aashiina ay u dhacaysaa adoo darawal ah ay qolo burcada ku afduubteen waxaana ku dhahan gaari noo kaxay gaarigii asagoo socday waxa lagu yiraahday ma istaajin kartid iskoolada intii madaxa laga saaray hadii kale waan ku dilaynaa wad wixii ka soo ka sarbaxna jiid kabacdi muraahaadka waxaad ka aragtay hooyada oo la xirxiray oo laamiga markaas la soo dhigay dabcan maxaad sameyn lahayd waan u istaagi lahaa hadda istaagto lagu dilaya waan u istaagi lahaa loo garaha lay dilo waan u istaagi lahaa way ma da garan saashi aad ma santahay magacaaga saddexan magacaygu saddexan waa Cabdiraxmaan Naasir Cabdiraxmaan barnaamijka ahli jiray su'aalaha halxalaha diyaar ma tahay ku weydiiyo dabcan diyaar waan u ahay inaad weydiiso way su'aasha sidan ayay u dhacaysaa ninba waxa la jiray ninba ay dilay kabad aygi dhawaaqiisa nin kale ayaa ku soo baxay oo guri kaga soo baxay
kabacdi ninkii baa wuxuu ku yidhi war eyga iska daa cabdullaahi hooyadii baa dhashay see ku dhacday waxaas kulley eygaas sida diinta islaamka ay sheegaysa in la dila muhiim ma aha haye waayo ciid karaahiyuu leeyahay haye marka dee kaa ka celiyey baa ma garanaysaa kicilin bas maaha cabdullaahi hooyadii baa dhashay buu yidhahda ee eyga iska daa maya cabdullahi hooyadii mayna dhalin see ku dhacday marka arrintaas kan ku saxan baa dilayaa si marka laakiin cabdullahi hooyadii mayna dhalinba haye marka dee kan dilayaa ku saxan haye okay kan dilayaa saxanay wax dilo kan dilayaa saxanba laakiin cabdullahi hooyadii mayna dhalinba waayahay su-aashii maada garan aad baad mahadsan tahay adiga waayahay magacaaga saddexan aftaax diriin maxamed cabditax su-aal xalxidhaala inaan ku weydiiyo diyaar moo tahay haa waayo su-aasha sidan ayay u dhacaysaa nin baa ay dilayay kabacdi nin kale ayaa ku soo baxay wuxuu yidhi war eygan iska daa buu yidhahda cabdullaahi hooyadii baa dhashee see bay ku dhashay igu celi mar kale su-aasha sidan ayay u dhacaysaa nin baa ay dilayay kabacdi nin kale ayaa dhawaaqi eyga ku soo baxay wuxuu yidhi war eyga iska daa buu yidhi cabdullaahi hooyadii baa dhashee muxuu ka wadaa haddii aad garato abaalmarin baad leedahay waxaan u malaynayaa inuu yahay ninkaas nin dhaqan xun mala okay nin ay dilayay marka wuxuu noqon karaa un qof rabiyadiisa iyo nasaxan tarbiyadiisa dilmada iska daa cabdullaahi hooyadii baa dhashay buu yidhi muxuu ka wadaa waa walaalo un baan u malaynayaa yaa ma eyga waayo maad garan aad baad mahadsan tahay waayahay magacaaga saddexan nimcaan maxamed axmed nimcaan su-aal inaa ku diyay xalxidhaalaha diyaar moo tahay yes waayahay su-aasha sin ayay u dhacaysaa qolo budhcada ayaa ku afduubata adiga darawalna waad ahayd kabacdi gaari noo kaxay ku dhaheen gaarigaana ilaa istaaji ku dhahna ma istaagi karin muskoolad intay madaxa kaa saareen kabacdi haadka ayaa waxaad ka aragtay hooyada oo xidhan oo laamiga taalla markaasi haddaad istaagtona waa lagu waxli jiray xabad baa lagu dhufanayaa haddii aad socota xageeba maxaad samayn lahayd maxaa xala abaalmarin baad leedahay haddii aad su-aasha aad garato daaqada waxaan ka arkay hooyada waxay xidhan deel istaagana madaxa laga dhufanaya xabad muraahaadkaad ka aragtay wadadii marka waxaa lihi jiray cidnana hawisi hoojin male cid kasta jiir baa lagu yidhi sax maxaad samayn lahayd hooyada maana jirin kulle badbaadin laha sayd ku badbaadin lahayd hadda maadaama muraahaadada ka arkay oo aan horteeda ahayn waan dhaafi lahaa waan socon lahaa lan horteeda may tale waa iga dambaysaa muraahaadadan ka arkayba okay aad baad mahadsan tahay su-aashii waad garatay aad baan kaaga mahad celinaynaa mahadsanid magacaaga saddexan magacaygu gulad cabdixareed gulad inaad su-aal ku weydiiyo diyaar moo tahay haa waayo su-aasha sina u dhacaysaa qolo waxaa lihi jiray budhcada ayaa ku afduubata adiga darawalna waad ahayd gaari baad u kaxaysa waxay ku dhaheen gaariga haddaad joojiso xabad baan kugu dhufanaynaa kabacdi muraahaad waxaad ka aragtay adoo gaariga wadaa hooyada oo laamiga taalla maxaad samayn lahayd waan istaajin lahaa dee hooyada waan saad u qaaday hadday istaagto waa lagu dilayaa baa lagu yidhi halla dilo hooyadii baa meesha taallaba haye marka hadalkooda anima dhegaysanaya laakiin hooyada meydkeedii manaamin baan qaadi lahaa marka meydkeeda may waa la dilo tirasamo haye waan qaadi lahaa marka way maad garan aad baad mahadsan tahay magacaaga saddexan oo bashir axmed nuur baan idhaha bashiir su-aal inaa ku weydiiyo diyaar moo tahay okay waayo su-aasha sidan ayay u dhacaysaa nin ayaa waxaa lihi jiray ey buu dilayay kabacdi nin kale ayaa eyga dhawaaqiisa ku soo baxa wuxuu yidhi war eyga iska daa cabdullaahi hooyadii baa dhashee see ku dhacday cabdullaahi hooyadii baa dhashay iska daa oo eyga cabdullaahi hooyadii baa dhashay iska daa cabdullaahi hooyadii baa dhashaa eyga iska daa haddii eyga waxaan malaynayaa un hooyaa dhashay iska daa ambulaahi baan may eyga ey cabdullaahi oo qof bilaadan ah weeyaan yaa eyga dhashay gebigiisaba dhegeyso su-aasha si qun u dhegeyso haysii qoqofin waraxaas waa gaal eyba mayna gaal bahaaba maxaa gaala waxa la dilayaa baa gaalaaba ay magacaaga saddexan cabdiqaadir cabdiqaadir su-aal inaa ku weydiiyo diyaar moo tahay haa diyaar baan u ahay waayo su-aasha sidan ay u dhacaysaa nin ayaa ay dilayay nin kale ayaa ku soo baxay eyga dhawaaqiisa wuxuu ku yidhi war eyga iska daa cabdullaahi hooyadii baa dhashee see ku dhashay haa cabdullaahi hooyadii soomayna dhalin ninka cabdullaahi dho hooyadii baa dhashay waa sax su-aashaas haye waka eygan cabdullaahi hooyadii baa dhashay tee Haye. eyga lagama hadlayo cabdullaahi hooyadii mayna dhalin haa waka su-aasha waa saasay waayo aad baad mahadsan tahay